waayahay bismillaahi raxmaani raxiim aad baa u mahadsantihiin waxaan maanta isugu kin yeedhay inaan sharaxo arrin maalmahan jiray 6dii bisha waxaan social media-ha ku arkay weriye iyo gabadh iswareysanaya oo weriyuhuna uu wareynayo gabadhuna ay waramayso oo laga hadlayo falnibiyeed dhacay laga sheekeynayo sidaa darteed dee cod dumar lama garan karo gabadha ma aqoonsan laakiin codkii weriyaha waa aqoonsado dee weriyaha codadkooda waa la kala yaqaanaa waxa weeye weriyaha la yiraahdo Yaquub Axmed Faarax oo Yaquub Casheeye loo yaqaano sidaa darteed waxaan xilligeedii la gaadhay xilligii aan arrinkaa ka hadli lahaa waxaan rabaa inaan wareysigii dul maro si aan u muujiyo sida uu macquulka uga fog yahay wareysigaasi wareysiga waxaa bilaabay weriyaha wuxuuna ka bilaabay xog uu isagu hore u hayay oo gabadha wuxuu leeyahay waxaad noo sheegtay inaad dhibane tahay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen uu ku faraxumeeyay isaga xogta dhiibay intii aanay iyadu dhiibin gabadhu way bilowday waxay sheegtay inay shaqo ka daba wareegaysay inagoo gobolka isla og inaan dee shaqaalaysiinama jirin xafiiska gobolka dad koobaniba ku qoran yihiin sidaa darteed halkani aanay ahayn xaruntii shaqaalaysiinta wasaaradii shaqada iyo shaqaalahana aanay ahayn waxay gabadhaasi sheegtay in la soo wacay goor makhriba oo la yiri xafiiska kaale saa ogtihiina dee makhrib xafiis lama yimaado waqtiga saacadaha shaqadu waqti bay leedahay gabadhaasi waxay sheegtay inay aniga iyo noogu timi inkasta oo ay tiri isaga iyo ilaaladiisa baan ugu imi oo aan iyadu magaca afkeeda ka oran gabadhaasi waxay tiri warqadahaygii baan soo qaatay bal hadda hadalka u fiirsado qofku markuu shaqo tag yahay warqada inuu soo qaato waa lagu yaqaanaa oo dee CV iyo shahaado iyo kay u tahayba warqada waa la soo qaadan karaa haddana gabadhaasi waxay raacisay xafiiskii baanu tagnay warqadihii buu qoris ku bilaabay oo laba la soo baxay midna waa ku jirtay halkaa waa garanaysaa cidii gabadha waxaan fartay iyo gabadhu inaan isla fahansanayn oo warkani war la faray uu ahaa waayo warqada la soo qaato oo CV la arag haddana warqadaha laftigeedii baa la qorayo labada ii soo baxday midna aan sugay hadiiba ay shaqo tag ahayd dee ma jirto warqad loo printer garaynayo stationery oo kale buu ekaanayay markaa iyada dee hadalkeeda macnaha meel warqadaha laga printer garaysto gabadhaasi waxay tiri ninkaasi waa soo kacay sheekan wada leenahay bay tiri cududu igu dhigi wardiyayaashu waa joogan bay tiri jamac bay ka dhigtay wardiyayaashu waa joogan cududu igu dhigi hadalkii baa taagtaagmay mar hadda eeg wardiyayaashina waa joogan hadalkii hadduu taagtaagmay dagaal weyn baanu galay cus baleeg hadda dhulku igu dhuftay kaliba baan miiska ku dhuftay raqabadu baskoolada sidii ushii igaga garaacay
waxba ilama harin intaas israacisay ninkayga intaa la eg oo gabadh hooyo ah oo tiri 10 baan dhalay ku durduriyay oo dhulka ku dhuftay oo aan waxba ula harin oo wardiyayaashii joogaan oo ay maqrib tahay oo xafiisku halka xaafadaha dhexdooda uu ku yaalo waa wax macquul ka aad uga fog waana wax magaalada oo dhan uu Yaaqoob ninka la yiraahdaa ku ceebaynayo waayo magaaladu waxay u ekaanaysaa marka magaalada ku taala meel aan muslimba joogin gabadh hooyo ah xafiiska looga yeeray lagu garaacay aan waxba loola harin baskoolada lagu garaacay wardiyayaashii joogaan xaafadihii ku dhaxyeen waa baxaya qofkii oo aakhirka waa baxaya oo haddana aan magaaladu ka hadlayn oo la hadal hayn oo loo macnaha sidii wax iska caadiba ay tahay oo kale buu warkaasi u dhigma dabadeedna waxay tiri intaa ka bacdi isaga iyo niman la socda iyo ninkaygiiba guriga iigu yimi dabadeedna wax la yiri xaal baa lagaaga keenay waxaan u malaynayaa xoogaa ciddii barnaamijka ka shaqaysay dhaqankana xoogaa ma yaqaanino gabadha hadiiba la dilay gashi bay leedahay ileen xaal wax ka weyn gabadhii waaba la garaacayo baskoolad baa surka lagaga garaacayo kaliba miis lagaga dhuftay oo macnaha waxa weeye halka xaal laga soo qaaday hadiiba ay gabadhaasi jiri lahayd gashi baaba jiri lahaade oo waatan la yiraahdo hadii jagtimi jariifo waa hadha waxa weeye wax sahlan baaba laga dhigay gabadhaasi tiri gabadha magaceeda anigu gabadha ma garanayo waxaan u maleynayaa inay tahay wax la soo dhoobdhoobay oo gabadha aan baran joogin meel kale magaceeda Faaduma Cali Saciid buu yiri Yaaqoob ileen inagu ninkii wareystay in baynu garanaynaa gabadha Faaduma Cali Saciid baa la yiraahdaa buu yiri sawirkeeda ma soo bandhigin muuqaal kama duubin cod buu ka duubay gabadhaasi waxay tiri wax la yiri xaal baa lagu keenayaa 13 casha layga aamusna dabadeedna waa la dafaray dabadeedna waxay tiri odayaal baan u tagay maalinta muuqaalka la duubay 6dii bishay ahayd shalay baan odayaasha u tagay bay tiri shalay ay sheegaysaa waa 5tii bisha anna maanta oo bisha ay 9 tahay ma arag inta wax odayaal oo yimaado oo yiraahdo gabadh baa surka baaskoolad kaga garaacday oo aad xafiiskaaga joogo hadii alla qadarkeeda leeyahay kalimiis uga dhufatayo sidaaseen waxaan macquul u ahayn wax jira inaan ahayn waayo waa garanaynaa haweenku xumadu inagu leeyahay haween badan baa ila dhashay gabdho badan baa ila dhashay gabdhaan dhalay gabdho badan baan qabaa haweenka xurmadoodana waynu garanaynaa qof kastana waa saas oo kale gabadha inta xafiiska la keenay la garaacay waxay u muuqataa in la isla ogaa maca waardiyayaasha maca xaafadaha maca oo wax la isla ogaa ay tahay odayaashaas markaa wali ma arag wiilal baa yimi bay tiri wiilashana waxay la tahay waxa garanaya Yaaqoob ninka la yiraahdo station ka la igey boqolada Garowe iyo Boosasana waa la hadlay halkaas aan fahmi waayay marka station kana waa tagi kartaan taliyaha saldhigga waa arki kartaan hadii ay jirto gabadh wiilal u geeyeeno saasoo kale nabar qabtay hadii alla qadarkeeda leeyahay qolada Boosaso iyo Garowe la hadlayna garan maayo waayo meeshu waxa weeye gobol hadii uu dambi ka dhaco waa muuqan lahaa halka markay mareysay Yaaqoob oo arinka hagayay oo u muuqday nin hagaya isagu gabadhu iyadoo marxaantiyadii sheegayso leh 4 nin oo baa ka marxaanti ah waa toosi ilaa markii hore marxaantida wax la yiraahdo qofka meesha jooga soo saama sida darteed waraysigii dib u dhageyso waxay tiri 4 nin baa marxaanti ahaa dabadeedna waa su'aal buu weydiiyay wuxuu yiri
saddexdii nin ee ilaalada ahaaba markhaanti ahaa sow maaha dabadeedna dee gabadhu lama fahansanayn arrinkaa ee waxay tiri maya ninkayga iyo nin kale oo la socdo ay ilma adeer yihiin iyo waardiyahaba markhaanti ah markaa waxay ka dhigtay in dadkoo dhami ay meesha joogaan laakiin Yaaqub toosi buu isiriyo waa u toosi weydi oo wuxuu yiri saddexdii nin ee waardiyaha ahaaba markhaantiga ahaa soo maaha wuxuu yiri odayaasha dambe hawshaada miyay gelayaan waa hadalka ugu yaab badan gabadhiina waxay lahayd shalay baan odayaasha u qayla dhaansaday isaguna markaa meel kale islaha ku hago ma garanayo dabeedna uu hagmoodo wuxuu yiri odayaal dambe miyay hawshaada gelayaan maadaama ay markii hore ku beerdareeyeen dabadeedna waxay tiri maya hay'adaha iyo baan la hadlayaa hadii alla qadarkeeda leeyahay muslimka iyo sidaa darteed waxaan leeyahay Yaaqub casheeye gabadha waa laga rabaa Yaaqub waxaan ka rabaa gabadha la yiraahdo Faaduma Cali Saciid oo uu wareystay oo aan video ka duubin ee uu cod ku wareystay gabadha dulmanaha ah de magaalada waxa jooga booliis waxa jooga maxkamad saxaafadna idinka jooga gabadhaas haday jirto oo baran joogto oo de intay idinka idin dhaafto qof boosaaso jooga Yaaqub casheeye boosaaso jooga lama xiriideen wariyaasha barameed bay u yeedhi lahayd inta hadii aan kaga baxo sheekada wareysiga iyo sharaxaadeeda iyo suumala awaalka u yahay iyo sida looga shaqeeyay oo de Yaaqub isaga sheegi doona cid kala shaqeysay hadda aan Yaaqub hubno inuu ka shaqeeyay oo su'aalaha uu weydiinayay gabadhaasi hal mar iyadu gudoomiyaha gobolka Sanaagna afkeeda kama oran Ali Xuseen Soomaalina kama oran sugu saddex jeer buu israaciyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Ali Xuseen Soomaali marna wuxuu yiri Ali Xuseen Soomaali kaliya waa afar jeer bay isaga afkiisa ka soo baxday iyada afkeeda waxaan ka haynaa xafiiska gobolka la iga yaar iyadoo aan markaa oran gobolka Hebel laakiin inuu barnaamijka isagu waday afar jeer oo uu hordhigayo marbuu su'aalahan la yiraahdo yes or no questions u hordhigayo soo gudoomiyaha Ali Xuseen Soomaali ma markaas waxay tirahaa laakiin iyada dibnaheeda marna kama soo bixin sidaas waxay cadahay inuu isagu duulaan ahaa Facebook-gana waa ogtihiin November qoraalo badan oo dacaayada buu dhigayay codad kale baan hayaa oo Yaaqub anigoo aan markaa aqoonba maalmaha anigoo aan aqoonba oo intuu isoo wacay dabadeedna su'aal weydiiyo markaan ku garan maayo oo aan isku nakidanina uu igu yiri cod baan ka duubay telefoonkayga soo ku jira maalinta loo baahdo oo ay maxkamad noqoto baan soo bandhigaya laakiin waxaan hadda halka ka cadeynayaa cod hore oo Yaaqub anagoo aan isgaranayn uu isoo wacay oo su'aal weydiiyay oo markaan isu kay sheekay tahay oo yiri Yaaqub casheeye waan ku garan maayo waan cabaar lahaa isu kay sheeg sida wax noo dhaxmareen Yaaqub maxaa rabtaa oo hanjabaad xitaa waa halkay ku jira xilligaadana la soo bandhigaya ninka dhex gala hadda profile-kiisana iyadana waa la arki doonaa dacaayadihii ana screenshot baan ka qaaday oo waa hayaa inta soo casho baa dad badan weydiinayeen maxaa la aamustayo de inta baaritaan baa socday iyo iyadoo 6 bisha ahayd oo la yiri 5 bisha iyo baa gabadhu tiri hadalkeeda ku dartay marka inta soo dhan baaritaan baan wadnay laamaha amniga iyo gobolku baaritaan bay wadeen baaritaankiina waxa soo baxay arrinkaasi inuu dusha u saaran yahay Yaaqub casheeye marka insha Allah de waxa weeye Yaaqub oo
gardacwadeedkiina saaka waa furay maxkamadan ka furay yaaquub oo maxkamadda soo qaabila haduu gabadhii hayona keena meeshu doonaha ka keeno ama boosaasaha ka keeno ama hadii Allah qadarkeeda leeyahay jarmalka ka keena sidaa darteed markaan halkaa kaga baxo yaaquub iyo gabadha la yiraahdo Faadimo Cali Siciid sheegatay waxaan rabaa bulshada gobolka Sanaag iyo guud ahaan bulshada Puntland inaan u cadeeyo wixii gabadhii yaaquub wareysanayay ee Faadimo Cali Siciid ay sheegtay inay been cad tahay marag ma doonta hadii Faadimo Cali Siciid gabadh la yiraahdo jirto oo aan saa u galay ilaa waa waxaan la qaadan karin gudoomiye gobol oo gabadh baskoolad surka kaga garaacay oo dhulka ku dhuftay oo hadii Allah qadarkeeda leeyahay miiska lido ugu dhuftay oo aan waxba ula harin gabadh noocaas oo Faadimo Cali Siciid la yiraahdo oo xafiiskayga timi oo wardiyayaashu joogeen hadii ay jirto waxaan leeyahay hay'adaha iyo ummadda muslimka ah iyo ilaa ummadda muslimka ah waa badan tahay inta warka ka baxday maxkamadda tag diyaar baanu ahay in aan cidii soo eedaysa oo been igu soo eedaysa intaan maxkamadda gallo maxkamadda horteeda miidiyaha jooga aan ku kala baxno hadii ay jirto gabadhaasi oo eeda ay haysata maxkamadda ha timaado hadii aanay jirin oo maba jirto ilaa waa ogahay yaaquubow waxa weeye waa waraa adigu samaysay waana hubaade inay saa tahay waayo yaaquubow de waaba ogahay halkaaba ku jira codkaagi duubnaa oo inta ila hadashay hodhow ii soo dirtay oo aan leedahay cod baan ka duubo hodhowna ii soo dirtay insha Allah marka waxaan bulshada ogeysiinayaa arrinkaas inuu been yahay yaaquubna laga rabo gabadha oo nool oo soconaysa oo maxkamadda timaada oo yaaquub wado ilaa inagu wajigeedana ma arag meel ku nooshahayna garan mayno waxa la waxay tahayna garan mayno hadii halka joogtona de idinka idin yeeri lahayd oo oran lahayd warka iga duuba marka asaga garanaya dal iyo dabad iyo Jarmal iyo Talyaani iyo Mareykan meeshay joogtaba yaaquub waa ka rabaa gabadhi waxa weeye yaaquub casheeye Faadimo Cali Siciid baan ka rabaa intaas